إلهي سبحانه وتعالى وحو بن آدم كوت الماما ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ وحو كبلا ما بي علماء إلى هذان وقيردة markay soo degto ka bilaabma ilaa iyo inta bacsigu dhacaya ama soo saaritaanku waa waqtiga u dhaxeeya baynu uga dan leenahay qabriga aynu sheegayno. qabriga waxaa la tilmaamaa xadiis imaam tirmidhi uu soo saaray sheekh al-albani xasan uu ku tilmaamayo Uthman ibn Affan baa waxaa la yidhi marka qabri uu soo agtaago ayuu ilmeyn jiray ilaa iyo oohinta ka soo dareerta ay gadhkiisa qoydo. markaasaa waxaa lagu yidhi Uthmaanow jannada iyo naartaba marka la sheego sidaa uma oydide maxaad marka xabaasha la sheego ama aad aragto sida tan ugu oydaa. dabeetana wuxuu yidhi waxaan maqlay nebigoo leh calayhi salaatu wassalaam alqabru awalu manaazili alaakhira fain najaa minhu famaa bacdahu aysar minhu wain lam yanj minhu famaa bacdahu ashaddu minhu. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. وحن مغليبو لي النبي عليه الصلاة والسلام وله حباشو وقرقي وقهر ريي آخر حقي إذا مرك الله كعيه يعني دار الدنيا عمل كلا شقيسني ولا قتقي حباشو بيقول وقرقي وقهر ريي آخره ninkii xabaasha ku badbaadaana wixii ka dambeeyaa way ka sii fudud yihiin. xabaasha se qofkii badbaadi waayaa famaa bacdahu ashaddu minhu wixii kaaga sii dambeeyana way kaaga sii darayiin. waxaan kaloo maqlay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo leh wax ka fool xun oo ka dhib badan xabaal maan arag nebigoo leh calayhi salaatu wasalaam. xabaasha wuxuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka mu'minka ah ee ilaahay uu xabaasha ugu nimceeyaana ee la tusiyo goobtuu jannada ka gelayay iyo naartii uu ka badbaadayna wuxuu idhahaa rabbi cajil qiyaama asaaca ilaahay ow dadeji qiyaamaha ama saacadda dhicisteeda ilaahu soo dadeji si uu reerkiisi iyo ahalkiisi iyo jannadiisii uu helo. qofka kaafirkaa ama xumina wuxuu idhahaa isagoo lagu cadaabayo xabaasha ayuu haddana wuxuu leeyahy rabbi laa tuqim isaaca ilaahay ow saacadda ha kicinin yacni aan qiyaamuhu dhicin waayo wuxuu ogyahay waxa ka dambeeya inay kaga sii dhib badan yihin. qabrigu waa meel madow siduu nebi moxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixayn ku yaalla ina haadihi alqubuuru malii'atun dulmatan calaa ahliha. xabaalaha kani mugdi ayaa ka buuxo dadkooday ku madow yihiin. وإن الله عز وجل منورها لهم بالصلاة عليه. إلهنا سبحانه وتعالى وحوق النورنا إياه صلاة أن كنت كذيب النبي عليه الصلاة والسلام صلاة داسي أن كنت كذيب إلهي سبحانه وتعالى حباش أغو النورنا إياه إلهي أنتو حباش أغو النور طهينا غياله. وحاو نبي عليه الصلاة والسلام ينوت الماما يا حباشو marka ugu horeysa qofka bini aadamka la dhago inay ku soo kokto ilaa iyo damma yani qabashay qabataa culimadu ay ku tilmaamaan in feedhihiisu ay isweydaaranayaan waana ka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiisa ka sugan ay tilmaamayso inaan waliba cidhiidhiga cidina ka nabadgelaynin xataa uu nabigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam inna lilghabri dagta low kaana axadu naajiyan minha najaa sacd ibnu mucaad wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xabaashu waxay leedahay qabasho ama cidhiidhi ama dhuujin bay leedahay qofka ay dhuujinayso oo aan cidina ka badbaadin hadday cidi ka badbaadaysa buu nabigu yidhi sacd ibnu mucaad baa ka badbaadi lahaa sacd waa saxaabigii nabiga calayhi salaatu wasalaam la dagaal galay ansaar ka tirsanaa ee dabeetana dagaalkii khandaqa ee ku geeriyooday nabarkii ka soo gaadhay ee uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridii sacad carshuraxmaan baa gilgishay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam carshuraxmaan waa akbar makhluuq waxa alla uumay wixii ugu weynaa yani waxay ku tilmaamaysaa insaanku markuu ilaahay ka cabsado siduu u qiimihiisu u koreeyo ee u weyn yahay markuu ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsan waayana sida qiimihiisu u liito
hadday cidi ka badbaadaysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam sacad baa ka badbaadi lahaa. waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ilmo yara aasay buu wuxu uhi low aflata axadu min damati alqabr lanaja hada asabiy. hadday cidi un ka badbaadi lahayd cadaabta dhuujinteeda iyo qabriga dhuujintiisa ama cadaadiskiisa hadday cidi ka badbaadi lahayd ilmaha yar baa ka badbaadi lahaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. xabaashu waxay ka mid tahay dhulka laysku itixaamo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka sugnaatay waxay tilmaamaysaa marka uu qofka la dhigo xabaasha ee laga dareero inay laba malag u yimaadaan, laba malag oo aragtidooda ay aragti adag tahay, aragti baqa gelinaysa, hadalkoodu uu yahay nahar iyo dagaal, oo intay soo fadhiisiyaan axaadiista qaarkoodna ay ku tilmaamayaan inay laba madmadow oo buluuya aswadaani asraqaan buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. axaadiista qaarkoodna waxay ku tilmaamayaan munkar iyo nakiir in la yidhaahdo. labadaas malag intay soo fadhiisiyaan qofka inay odhan doonaan man rabbuk, maa diinuk, man nebiyuk, war yaa kuu rabbiya, diintaaduse maxay ahayd, nebigaase waa kuma. qofkii alla sugaya subxaanahu wa tacaala markaas allahayna sugaye wuxuu odhan doonaa rabbigay waa alle subxaanahu wa tacaala, diintayna waa islaam, nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam waa nebigii iyo rasuulkaan rumaysnaa. qofkii munaafiq iyo gaalina inuu waxba garan waayi doono oo ay markaasi habaari doonaan. waana sababtay ku fasiraan culammadu aayadda qur-aan ee ilaahay leeyihi yuhabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya. ilaahay subxaana wa tacaala qofka mu'minka ah wuxuu ku sugayaa alqowl athaabit fi lxayaati addunya wa fi alaakhira, aakhiriya adduunba. yacni waxay culammadu ku tafsiiraan inay tahay marka xabaasha la dhigo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala baqa gelin kari maayaan malaa'igta tan ad adag ee wax dagaalayaaye waxa ay ku hadlayaan ilaahay baa ku sugaya weedhii saxa ahayd oo inuu garto inuu rabbina alle u yahay, islaamkuna diintiisii tahay, nebi moxamedna rasuulku rumaysnaa inuu yahay calayhi salaatu wasalaam. markaasaa samada laga dhawaaqaya la odhanaya an sadaqa cabdi, run buu sheegay addoonkaygii. kii kale ee gaalkaana haah laa adri, ilaa ay ka yidhaahdaan malaa'igtu laa darayta walaa talowt, waxba garan maayo buu odhan doonaa. waa yacni waxba wuu garan waayi doonaa. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu cadaabka inaga dhowro oo qabriga kuwa sugma alle subxaana wa tacaala inuu inaga yeelo.